waa tahay war degdeg ah oo hadda soo dhacay oo naga soo gaaray Gaza hadii aynu eegno bogga wararka Israa'iil ayaa sheegaya in ugu yaraan 5 askari oo ka tirsan unuga sahminta ay ku dhaawacmeen waxa lagu tilmaamay dhacdo amni oo ka dhacday magaalada Khan Yunis ee koonfurta marinka Gaza wixii war ay ka soo kordha warkaasi barnaamijyada dambe ayaan idinku soo gudbin doonaa daawadayaal aynu ku sii soconay isla arrimahan ciidamada duulaanka ah ee Israa'iil ayaa sheegay in sargaal iyo askari ka tirsanaa cutubka Golani lagu dilay qarax miino oo ka dhacay koonfurta marinka Gaza maalintii Sabtida wargeyska Idaaco Tahranood ayaa soo xigtay ilo military oo Israa'iil ah oo sheegay in sargaalka iyo askariga lagu dilay miino lagu xiray gaari ciidan oo ay saarnaayeen askar sargaal kale ayaa sidoo kale ku dhaawacmay qaraxaasi lala eegtay askartaasi dhanka kalena wargeyska Idaaco Tahranood ayaa soo xigtay sargaal ka tirsan ciidanka Israa'iil oo sheegay in dagaalka Gaza la joojiyo joogitaanka ciidankeena ee gudaha marinka Gaza waxay halis weyn gelinaysaa noloshooda jiidu waa mid dilaa ah waxaana ugu baaqaynaa xukuumadda inay soo celiso dadka la soo afduubtay oo ay dagaalkaasi si dhaqsi ah u joojiso maalin kasta waxaan ku weynaynaa askar anaga oo waxba aanan helin waqtigu inaga nooma shaqeynayo ayuu sii raaciyay hadalkiisa askarigaasi isla wargeyska Israa'iil ka soo baxay Idaaco Tahranood aynu ku sii soconno xogta uu qoray waxa uu soo xigtay la sheegaya in koror weyn uu ku yimid tirada askarta Israa'iiliyiinta ah ee soo wajahday dhibaatooyinka dhanka dhimirka bilihii la soo dhaafay in ka badan 10,000 oo askari ayaa tan iyo 7 bishii Oktoobar weerarkii 2023 dhacay laga daweynayay dhibaatooyinka dhanka dhimirka ah oo ay dagaaladu sababeen sanadkii 2024 dhalinyaradu waxay noqdeen inta ugu badan lala tacaalayo niyadjabka iyo sidoo kale dhibaatooyinka nafsiyadeed ee ka jira gudaha ciidamada Israa'iil ilaa 7 bishii Oktoobar waxa la diiwaan geliyay in ku dhawaad 19,000 oo askari oo dhaawac ciidanka soo gaaray ah oo ay ku jiraan kuwa la tacaalaya dhibaatooyinka dhimirka in ka badan 12,000 oo askari ayaa dib ugu laaban dagaalka sabab la xiriira xaalada nafsiyadeed oo ay ka soo qaadeen dagaalkaasi isla wararka Gaza intaynan ka bixin telefishinka Fox News ayaa soo xigtay wakiilka u qaabilsan Mareykanka bariga dhexe Stephen Witkoff in isagoo sheegay wadahadaladii Hamas hakadka galay ay hadda dib u bilaabanayaan heshiisyada Abraham Accord waxay sii balaaran doonaan ayuu hadalkiisa ku daray mana noqon doonto wax la yaabo haddii ku dhawaad 10 dal ay ku soo biiraan dhamaadka sanadkan madaxweyne Donald Trump waxa uu hadda yahay booliiska caalamka taasina waa muhiim maxaa yeelay waxa uu keenayaa oo caalamku u keenayaa inuu ku soo dabaalo kala dambeyn iyo xasilooni sida uu hadalka u dhigayo geesta kalena kanaalka 12aad ee Israa'iil ayaa isna soo xigtay taliyihii hore ee ciidamada Gadi Eisenkot oo sheegay in ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu uu si ula kac ah u fashiliyay heshiisyadii saraakiisha la haystay sababo siyaasadeed dartood isagoo ku eedeeyay in Netanyahu uu doonayo inuu sii xajisto xukunkiisa dan yeelana uusan ka lahayn waxyaabaha ku saabsan ciidankooda tahay daawadayaal haatana waxaynu soo gaarnay xubinta ugu dambeysa ee barnaamijka oo ah xubinta falanqaynta taasoo aan alaba ku soo qaadano warbixinada iyo xogaha ay bixiyaan qobarada arrimaha militariga kuwa istiraatiijiyadda ciidamada siyaasadda iyo waliba sirdoonka sidoo kale waxaan ka marnay xubintan ku soo qaadanaa kuna qaada dhignaa arrimaha waaweyn kuwaasi oo warbaahinta caalamku ay wax ka qorto amaba ay baahiso xubinta maanta waxaan ku soo qaadanaynaa muqaawamada Gaza oo gelisay ciidanka Israa'iil dagaal aysan horay u arag qabiirka arrimaha militariga iyo istiraatiijiyadda Sareeye Goote Elias Hana ayaa aaminsan in dagaalkii caadiga ahaa ee marinka Gaza uu dhamaaday waxaana uu sheegay in waxa hadda socda uu yahay dagaal daalin ah ama waqti dheer socda oo ku dhufo ka dhaqaaq ah oo u dhaxeeya ciidanka Israa'iil iyo muqaawamada Falastiiniyiinta taasi oo sida uu tilmaamay soo rogtay xeer dagaal oo cusub oo ka duwan kii hore hadalka Hana ayaa yimid isagoo falanqeynaya xaaladda amni ee Gaza gaar ahaan dilka askar Israa'iili ah oo ka dhacay magaalada Khan Yunis ee koonfurta Gaza kuwaas oo ay ku jiraan sargaal iyo sidoo kale askari ka tirsanaa cutubka Golani kadib markii lagu qarxiyay miino shalay
ciidanka Ciisadiin al-Qassam oo ah garabka militariga Xamaas ayaa sheegay inay bartilmaameedsadeen 2 gaari oo ciidan oo Israa'iil leedahay iyadoo oo 2 bom lagu tuuray qolka taliyayaasha kadibna la gubay. Gaari saddexaad ayaa sidoo kale lagu beegsaday gantaalka Al-Yaasiin 105 kaasi oo lagu beegsaday deegaanka Cabasaan al-Kabiira ee isla Khan Yunis. Sareeyo guutahana waxa uu yiri dagaalka maanta socda waa dagaal miinooyin, dabinna adag iyo qarxinta dhismayaasha ah. waa dagaal magaalo oo buuxa. Waxa uu intaasi ku daray in muqaawamadu ay si fiican u diyaarisay goobta dagaalka kuna soo rogtay hab dagaal oo cusub ciidanka Israa'iilna aysan awoodin inay la qabsadaan habkan cusub. waxa uu cadeeyay in dagaalku hadda yahay mid masaafe eber ah lagula dagaalamayo oo uu la jeedo dagaal foolka fool ah taasi oo meesha ka saaraysa in la adeegsado ciidanka cirka ama taangiyada iyo sidoo kale gaadiidka gaashaaman maadaama dagaalyahanada muqaawamada ay dusha ka fuulaan taangiyada kadibna ay ku tuuraan babooyinka lagu magacaabo shabaaz. tallaabooyin cusub oo muqaawamadu ay qaaday. falanqayntiisa militari ee xaaladda Gaza hana waxa uu ku sheegay in muqaawamadu ay gelisay ciidanka Israa'iil nuuc dagaal ah oo aysan horay u aqoon waxayna u dagaalamaan si koox ah oo yaryar si feejignaan leh maadaama ay si fiican u garanayaan dagaalkan. dhanka kale ciidanka Israa'iil uma suurtagelin inay adeegsadaan awoodooda buuxda. tusaale ahaan haddii taangigu uu galo bartamaha dhismayaasha ma awoodo inuu dhaqaaqo. hana waxa uu sheegay in Israa'iil ay caado u leedahay dagaal nuuc gaar ah oo kooxaha injineeriyadda militariga ay u furaan wadooyin isla markaana ay ilaaliyaan cutubyo kale balse kooxahaasi waa daciif sababtoo ah ma haystaan waxa loogu yeero nabadgelyada howlgallada. sidaas darteedna muqaawamadu waxay beegsataa cutubyada kaliya u shaqeynaya taasi oo ka dhacday Cabasaan, Khan Yunis iyo Jabaliya oo waqooyiga Gaza ah. qalab la'aan iyo taageero shisheeye sida uu sheegay hana unugyada injineeriyadda Israa'iil waxay ku hawlan yihiin furista wadooyin, burburinta guryaha iyo nadiifinta miinooyinka laakiin hadda ma haystaan qalab ku filan. sidaas darteed waxa ay dhawaan soo iibsadeen Mareykanka ku dhawaad 300 oo kamid ah mashiinada waaweyn ee baldoosarka ama cagafyada ah. sidoo kale shirkado injineero oo gaar loo leeyahay ayaa la soo kireeyay. ugu dambeyntii sareeyo guutahana waxa uu sheegay in muqaawamadu ay ka fogaato dagaal go'aan ah iyadoo halkii ay si toos ah ula dagaalami lahayd ay diiradda saarto daciifinta ciidanka gumeysiga. dagaalkani waxa uu yahay mid isku dhafan oo militari ahaan iyo siyaasad ahaan halka Israa'iilna ay raadinayso dagaal go'aan ah oo ay u bandhigto siyaasiyiinteeda. ku soo dhawow Safari Remit warkii ugu mudnaayo waliga aad maqashaan hadda ku waramaya ee kaalay u hesho Safari Remit. haddii aad ku nooshahay dalka UK Safari Remit waxay ka caawinaysaa inaad lacag u dirto ehelka ku jooga geeska Afrika sida Kenya, Soomaaliya, Uganda, Djibouti, Ethiopia, Sudan, South Sudan, Tanzania iyo waliba dalka Turkiga si fudud oo qiimuhuna jaban yahay. macaamiisha cusub waa khidmad la'aan 3 jeer ugu horeysa lacag diristooda. isticmaalka Safari Remit waa mid aad u sahlan waxaana ka xigta inaad booqatid www.safariremit.com. waxaadna ka geli kartaa laptopkaaga, mobilkaaga ama iPadkaaga meel kasta oo aad joogto. Safari Remit hadda adeegeeda waxay ka bilowday dalka UK mar dhowna waxa ay ku baahi doontaa dhammaan wadamada Yurub iyo waqooyiga Amerika. Safari Remit rugta lacag dirista ugu fudud baahi loo qabay. Safari Remit. xarunta caafimaadka ee Private Walk in Clinic waxay bulshada Soomaaliyeed ugu bishaaraynaysaa inay qiimo dhimis weyn ku samaysay adeegga ultrasound scanka iyadoo qiimihiisa laga dhigay 150 pound oo kaliya halkii uu ka ahaa markii hore 240 pound. waxaa sidoo kale xarunta ka howlgala Dr. Akan Efe oo ah dhakhtar rug cadda ah kana soo shaqaynayay hawlaha caafimaadka muddo ka badan 30 sano kuna takhasusay xanuunada wadnaha, caloosha iyo dheefshiidka, kilyaha, sambabada iyo lafa xanuunka. Dr. Akan Efe wuxuu xarunta ka howlgalaa maalinta Arbacada usbuuc kasta. sidoo kale xarunta waxaa ka howlgala dhakhaatiir isugu jira Soomaali iyo ajnabi oo takhasusyo kala duwan leh. waxaa intaa dheer inaad xarunta ka heli karto adeegyo kale oo caafimaad oo ay ka mid yihiin daaweynta jirdhiska, physiotherapy, daaweynta cudurrada maskaxda iyo dareenka sida walwalka,
murugada waswaaska iyo trauma xarunta private walk in clinic waxa ay ku taallaa galbeedka magaalada London xaafadda caanka ah ee Shepherd Bush wixii faahfaahina oo inta dheer kala xiriir lambarada emailka iyo baraha bulshada ee shashada kaaga muuqda adreeska xaruntu waa 108 Goldie House Road London W12 8HD